waxaynu maraynaa qaybtii ugu dambeysay ee xarfaha magacaaga ugu horeeya waxyaabaha ay tilmaamayaan xarafka W ama waa. xarafkani waa mid dabeecadiisu ay tahay sida mawjadaha noloshiisuna marna sare u kacdaa marna hoos bay u kacdaa marna way fududaataa marna way cuslaataa. waxa uu leeyahay awood iyo karti xagga hadalka ah iyo mid caqliyadeed uu dadka la samayn karo. waxa uu awood u leeyahay inuu raaxo u bedelo noloshu markay adkaato, waana qof dadku ay aad u jecel yihiin. way adag tahay in laga adkaado ama la maamulo. mar walba waxa uu raadiyaa isbedel inuu nolosha ku sameeyo ama boosoo nolosha ku raaxaysto. xarafka ega samaxa. xarafkani waa mid awood badan. waxa aad ugu badan runsheega iyo caadaysiga xaqiiqada. waxa uu jecel yahay in wixii xaq iyo daw ah uu nafta u horo, laakiin waa qof caadifad badan. inkastoo muuqaalku duleed uu u eeg yahay qof degan, waxa uu u baahan yahay deganaanshiyo nafsiya iyo mid bulsho. xarafka ugu dambeeya ee waay ama yaa. xaraf ay noloshiisa ka buuxday iska hor imaadyo adag iyo kala duwanaanshiyo dagaal. waa xaraf ay ku jirto xoogaa ruuxaaniyada. waxa uu ku wanaagsan yahay shaqo kasta oo u baahan maskax iyo caqli in si wanaagsan loogu adeegsado. marka uu kaliga yahay waa uu shaqo wanaagsan yahay. waxaa lagu xantaa inuu shanta dareeme ee dadka hal dheer yahay amaba se uu dareen badan yahay. taa micnaheeduna waxa weeye waa nooc ay dadku u yaqaanaan inuu garab salaax leeyahay. waxa aad u sarraysa ruuxaaniyadiisa, laakiin waa qof labaclabac ah oo go'aan qaadashadu ay aad ugu adag tahay. fiiro gaara. waxaa xusid mudan in xuruufta lamaanaha ee ku jira af Soomaaliga ee kha sha dha waxay la halmaalayaan xarfaha ugu horeeya ee magacooda, kuwaasoo kala ah ka iyo sa iyo da sida ay u kala horeeyaan. daawadayaal, intaasi waxa inugu guud ahaanba afartii qorme aynu ku soo qaadanaynay xarafka ugu horeeya magacaaga oo muujinaya qayb ka mid ah dabeecadaada. tan iyo kulanti dambe waa Kamaal Axmed Cali oo idiin soo diyaariyay qormooyinkan iyo aniga Maxamed Taajir iyo Badageyska Afrika oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.